runtii waa u mahad celinaynaa gabdhaha iyo wiilasha iyo saxaafadda intaba muujinaysa dareenkooda ku wajahan in dadka reer Puntland ku dhibaatoobay ay wax ka soo gaareen kufsiyada abaabulan ay maanta u soo baxeen waliba iyagoo aamusan oo aan hadda buuq iyo rabsho kala toonana samaynayn u soo baxay inay dareenkooda muujiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa halkaana waxaan rabaa inaan ka sheegno anigoo ku hadlaya afka dawladda Puntland xukuumadda Puntland runtii wasiiradii kalena ayaguna hadda ku soo biiri doonaan maadaama hadda meesha aad timaadeen waxaad u timaadeen in ahayd inaad muujisaan fariinta aad u didaan xukuumadda oo ah meesha ay ku yaaleen wasaaradaha dawladdu in arrimihii dhacayay oo una muuqda kuwa abaabulan horeyna u soo dhacayay aysan ahayn kuwa hadda la saan qaaday inkastoo kaysaska badankooda hadda ay ahaayeen wax leeyadan dambe si gaar ah dadku ay ugu soo baxeen oo hadda arrintii Caaisha ugu horeysay kii hadda ugu dambeeyana uu ka dhacay Garowe kii hodan ahaa laakiin arrinta kufsiga ay ahayd mid muddo dheer hadda soo jiitamaysay dawladda haddii lahayn Puntland waxa ka go'an arrintaas in laga qaado tilaabooyin wayna socotaa waxaan Ilaahay mahadiis inta badan hadda dhacdooyinkii kufsiyada ee dhacay ama ha noqdeen kuwa abaabulan ama ha noqdeen kuwa mid u dhacay intaba in dad loo hayo ayna haddii lahayn ma socoto baaritaankii insha Allah waan ognahay dadku kaysaska qaarkood shaki baa la muujiyay waxa la war dawladdu waa la daahday warar maan gacanta waxba lagu hayn laakiin waxaan rabaa halkaan inaan kala socodsiino dadka reer Puntland la socodsiino dadka Soomaaliyeedna la socodsiino kufsiyadii dhacayay intoodii badnayd waxa loo hayaa dadkii la qabtayna waxa ku socda baaritaan haddii lahayn ma cadaalad ayaana la horkeeni doonaa waxaan rajaynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dawladdu ay ka qaadato haddii lahayn muddo aan fogeyn marka waxaan rajaynaynaa dadkuna inay isdejiyaan dadka aan la kicin la sugo hay'adaha cadaaladda iyo dawladdu go'aanada ay ka qaadanaysa haddii lahaydmo iyo sharciga la waafajinayo dadkaas inagu cidna ma rabno inaynu haddii tacaddi dhaco tacaddi kale in la sameeyo lama rabo dadka kaysaska loo hayo waxay rabaan baaritaan cadaaladda la waafajiyay in la marsiiyo haddii lahaydmo ciddii lagu helana cadaaladda la horkeeno oo ay helaan waxay xaq u yeesheen haddii lahaydmo dawladduna arrintaa gacanta ku haysaa aad iyo aad baan idinkuga mahad celinaynaa idinkagana mahad celinaynaa inaad dareenkiina muujisaan ay gabdhaha ay ku muujinayaan dareenkooda in loo baahan yahay cadaalad maanta waa arrin aad u soo dhaweynayno annaguna aan qabno dareenka haddaan nahay dawlad ahaan inay arrintaani ay tahay arrin dastuuriya oo loo baahan yahay in la qaato ficil la qaato maanta waxyaabaha aan uga hadli weynay baraha bulshada iyo bulshada aan qayb uga noqon weynay waxay tahay inaan annaga laftaga iyagoo ay tahay arrintan arrin ay u taala dawladda iyo cadaaladda dawladda hadda waxaan ka soo baxnay kulan wasiirada ay arrimahan maxay ahayd oo ay dawladda u xisaartay isla arrintaa baan ka hadlaynay waxaad moodaa inaan ficil iyo dareen isku mid aan qabno aad baan u taageeraynaa inaan cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helidda aysan qayb ka ahayn ay tahay hawl dawladda u taala waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynaynaa haddii aan laydmo kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dawladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roola kuma laha kana siin mayno haddaan dawlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hogaamiso cadaaladdu waxay u taalaa oo loo doortay waa dawladda ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay ma aha wax la aqbali karo waa wax gacanta lagu hayo waa waxaan habeen iyo maalin u kala kicinin maxay ahayto shirarka arrintan looga hadlayo mar dhowna haddii la yiraahdo war lagu farxo baa soo bixi doona ilaahay idankii مسيرة اسمها انتفاضة العدالة لدينا 3 مطالب أولا عدالة ناجزة ثانيا مشاركة المعلومات مع الشعب ثالثا نريد أن نخبركم بأننا لن نتوقف حتى تتحقق العدالة ونراها بأعيننا إن شاء الله On our silent protest today, we demand 3 main objectives. Our first objective is for justice to be served. Our second objective, which is very important, is information sharing with the public. The authorities must share information with the public, and we promise you we will not stop this protest until justice must be served. sababta halkan isugu ay soo saartay waxa weeye inaanu doonayno 3 dalab. 3 dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo. tan labaadna waxa weeye in cadaaladdu ay waqti aysan qaadanin tiro badan.
تصدحات وحوية إن لو ذاقو حكتا وإن لو ذاقو شعبك ولا لو ذاقو ماشي مريسو إنه لا شيء مركزته مظاهرات كان سعنية متشوك سنة يماها حكتا سبحان ربنا إلا أقاده ما تشوكينين إلا اللي هلو عدالة هذا الماها عدالة وفعل للسمايو وكفصديه ولا ساقبته ولا مريو شرعي كان الكونستيتيوشن كبتلان واحد وقريه DMI